السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام كتب مركور وايد سلامي وأنا قاعد تروح برساق أحمد نور تور كمبالا. ما أنتو حنك هذي دونا حنون كلو يقانو عيار شوجا أو لو ما عرفت لو قد خلاد لوير هذا هابيتاتيس كا وما حي عيار شو أما هابيتاتيس مر هذه عاد مقشي عيار شو أما هابيتاتيس معناه هي وحواي عابق كجر بيرka caabuqa mar haddii uu beerka jiro waxyaabo badan ayaa keeni kara laakiin si cagaarshow ayaa hadda haya qofkan macnaheedu waxa waaye cagaarshow ayaa ka jiro beerka caabuqa inuu beerka ku dhaco waxaa keeni kara waxyaabo kala duwan koow haddii ay ahaan lahayd virus ama maaragtay dadka isticmaalo muqaadaraadka qaasatan qamriga saddex iyaduna daawooyinka qaar iyaguna waxay maaragtay keeni karaan caabuq inuu ku dhaco beerka hepatitiska inuu qofka maaragtay develop gareeyo laakiin si maanta ayaan diiradda saari doonaa caabuqa ku dhaco oo keena viruska iyo fayrasyada kala duwan waxa ugu caansan shan virus shantaas waxay kala yihiin kow hepatitis A lama hepatitis B saddex hepatitis C afar hepatitis D shan hepatitis E intaas ayay u kala baxaan laakiin se waxaan diiradda saari doonaa labada ugu xun isla markaana maaragtay ugu dhibka badan ee ku dhaca beerka shantaas nooc oo maaragtay kala duwan ayaa maaragtay ka hadli doonaa hadduu eebana ogolaado kow hepatitis A wuxuu maaragtay waxa keeno cuntada ama maaragtay sida nadiifka ahayn loo isticmaalo ama loo kariyo ama cuntada maaragtay qudaarta ana maaragtay qudaarta oo si fiican maaragtay loo dhaqin inta badan caloosha ayuu ku dhacaa inta badan maaragtay caloosha uu maaragtay ku badan yahay oo ku dhaca wax dhib ahna ma keeno inta badan maaragtay waa laga reestaa alxamdulillah anoo maana hepatitis B waa midka ugu xun ayo hepatitis C asigana waa sidoo kale wuxuu ka roon yahay hepatitis B-ga laakiin asiga aad buu u dhib badan yahay hepatitis D wuxuu ku dhacaa qofka markuu hepatitis B oo ku soo dhaco kadib ayaa lagu arkaa inta badan hepatitis B oo la socoyaa la amarki hepatitis E wuxuu ku yimaadaa cuntada aan nadiifka ahayn hepatitis E wuxuu ku yimaadaa cuntada aan nadiifka ahayn wuxuuna ku badan yahay hooyada markii ay uurka leedahay aan u imaano labada nooc oo maaragtay ugu daran hepatitis B iyo hepatitis C maalmahan dambe bulshadeena aad ayuu ugu badan yahay oo ugu soo badanaya cudurkan waxaad arkaysaa isbitaalo maaragtay la keenayo dad aad u fara badan oo baarka ka jira baarka kansarka qaba ama caloosha biyo ugu jirto iyo waxyaabo kala duwan markii laga hadlaayo hepatitis B hepatitis C maahantii mawduuc aad u weyn oo maalmo badan qaadan karo waay laakiin se aniga Dr. Cabdirasaaq ahaan waxaan diiradda saarayaa maaragtay wacyigelinta iyo bulshada aan u maaragtay ugu sheegayaa dhibaatada maaragtay oo maaragtay oo keeni karaan cudurkan cagaarshowga la dhaho hepatitis B waa midka ugu dhibka badan oo ku dhaca beerka hepatitis B wuxuu raacaa dhiigga inta badan waxa maaragtay lagu kala qaadaa qof hepatitis B qabo oo dhiig qofka kale loogu shubo waxa kale oo maaragtay lagu kala qaadaa jamaaca hepatitis B waxa kale maaragtay lagu kala qaadaa buraashka maaragtay la isticmaalo hepatitis B waxa maaragtay kaga duwan yahay dhammaan maaragtay hepatityada kale hooyada uurka leh waxay maaragtay u gudbin kartaa cunuga caloosha ku jiro hepatitis B waxa maaragtay lagu qaadaa maaragtay xarumaha ilkaha hepatitis B waxa maaragtay laga qaadi karaa xarumaha ilkaha hepatitis B waxa laga qaadi karaa dadka maaragtay xarumaha caafimaadka ka shaqeeya waxa ku dhaco wax la yiraahdo needle stick needle stick waxa waaye iyagoo maaragtay shaqada caafimaadka ku jiro
qof laga yaabo in ay maaragtay duraan qofkii markii duraan inay asiga ay muddo cirbad hepatitis B markuu bararka oo markuu maaragtay hepatitis B markuu baarka oo muddo ka hayo number gaarayo 10 ilaa 20 sano kadib qofka maaragtay waxa ku yimaado wax la yiraahdo liver fibrosis baarka inuu maaragtay adkaado kadibna maaragtay kuskus oo yeesho kadibna maaragtay muuqaalkiisa dhan oo isbedelo kadib waxa ku dhalanaya wax la yiraahdo maaragtay liver cirrhosis liver cirrhosis wuxuu ku dhacayaa qofkii inuu maaragtay calooshii ay biyo ka galaan qofkii inuu maaragtay mir daboolmo in asiga oo dhan uu bararo iyo waxyaalo kala duwan iyo waxyaabo kale oo la mid ah ugu dambeyn hepatitis B wuxuu keeni karaa kansarka beerka ku dhaca vascular carcinoma hepatitis B wuxuu maaragtay keeni karaa kansarka beerka ku dhaca vascular carcinoma hepatitis C markii loo fiiriyo wuxuu ka roon yahay wax yar hepatitis B laakiin asigana dhibaatadiisa waxa waaye sida hepatitiska oo kale hepatitis B oo kale waxa lagu kala qaadaa dhiigga laakiin hepatitis B soo maaragtay u dhib badan yahay uma dhib badno hepatitis C hepatitis C sidii koo hore aan ugu soo hadalnay wuxuu keeni karaa asigana liver fibrosis baarka inuu maaragtay adkaado oo isbedelo oo noqdo maaragtay cirrhosis oo maaragtay oo yeesho kuskusmo yeesho inay maaragtay ka soo baxaan maaragtay baarka shaqadiisa oo gabo inuu maaragtay baarka oo bararo ugu dambeyn wuxuu keeni karaa vascular carcinoma okay hepatitis B iyo hepatitis C aan isbarbar dhigno farqiga u dhaxeeyo markii laga hadlayo daawada ama isticmaalka ama maaragtay hepatitis B markii laga hadlayo hepatitis B wuxuu leeyahay talaal laakiin hepatitis C ma lahan wax talaal ah laakiin bulshadeena Soomaaliyeed waxaan maaragtay u sheegayaa in maaragtay ka taxadaraan hepatitis B talaal uu leeyahay alxamdulillah wala talaal karaa kaas laakiin waxaa daran hepatitis C badanaa dadka xarumaha ka shaqeeya caafimaadka waxaan maaragtay u sheegayaa mar kale inay maaragtay istalaalaan siday maaragtay qatartan ugu badbaadaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.